بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مدن قدومية مدنيال يمروين صاحب إذا برلمان كوي تبنات دولة فدرال كصوماليا waxaan sharaf iyo maamuus ii ah inaan golaha hortiisa u soo istaago inaan kalsoonidiina isiisaan oo aan qabto xilka gudoomiyaha baarlamaanka 11aad jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya anigoo ogsoon in xilkaasi uu yahay mid xil mas'uuliyad weyn ah mudanayaal iyo marwooyin iyadoo aan wada dareensanahay duruufaha kala duwan ee ay soo martay Soomaaliya iyo culayska uu leeyahay xilka gudoomiyaha baarlamaanka iyo ogolaada inaan idinla wadaago sababaha aan u go'aansaday inaan isu soo taago xilka culus ee mas'uuliyadiisa adduun iyo aakhiraba la isweydiinayo muddaxileedkeedu yahay 2022 ilaa 2026 waxaan aaminsanahay idinkana la socotaan inay mas'uuliyadda ugu weyn ee baarlamaanku yahay dejinta shuruucda iyo dhowrista dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo la xisaabtanka xukuumadda iyadoo sidoo kale matalaadda dadka iyo deegaanada waa qayb ka mid ah mas'uuliyadda baarlamaanka si loo xaqiijiyo arrimaha oo idil waxaa lagama maarmaan ah inuu baarlamaanku yeesho gudoomiye daacad u ah hay-adaha sharci dejinta kana ilaalin kara ku milmidda xukuumadda lehna aqoon maadi ah iyo mid diineed khibrad iyo waayo aragnimo muuqata haddaba iyadoo la tixgelinayo aqoontayda sare khibradeyda iyo kartideyda waxqabad ee hoos ku qoran waxaan doonayaa inaan ugu faa'iideeyo baarlamaanka Soomaaliyeed haddii alla igu guuleeyo idinkuna aad ii doorataan qabashada gudoomiyaha baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dhanka aqoonta waxa quraanka ku soo xafiday magaalada Xudur ee gobolka Bakool sidoo kale waxa dugsigii hoose dhexe iyo sare ka qaatay isla magaalada Xudur waxaana ka qalin bedeshay dugsiga sare sanadkii 1986 shaqadii qaranka kadib waxaan macadka Siidam ka qaatay diblomo maamulka iyo xisaabaadka sidoo kale waxaan qaatay shahaadada heerka koowaad ee jaamacadda anigoo diyaariyay takhasuska maamulka guud waayo aragnimadeeda shaqo mudanayaal iyo marwooyin saaxiibadeeda sharafta leh ee baarlamaanka 11aad waxaan dalkayga horey ugu soo shaqeeyay shaqooyin fara badan oo kala duwan burburkii ka hor iyo kadibba haddaan ku soo koobo hadaljeedinteyda qodobada waxaan xisaabiye guud iyo khasnaji guud ka soo noqday bangiga ganacsiga ee kaydka Soomaaliyeed laamihiisa Xudur iyo Baydhabo waxaan ahaa gudoomiyihii gobolka Bakool waxaan soo noqday agaasimihii guud ee bangiga dhexe ee Soomaaliya sidoo kale waxaan ahaa xubin ka mid ah baarlamaankii 9aad ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ugu dambeyntii waxaan ahaa wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha dawladdii ama xukuumaddii Xasan Sheekh Maxamuud mudanayaal iyo marwooyin anigoo ka faa'iideysanaya fursaddan haddii aad codkiina iyo kalsoonidiina isiisaan waxaan hortiina ka ballan qaadayaa inaan idinku hogaamin doono qodobadan soo socda 1 cadaalad waxaan idin ballan qaadayaa haddii aad i doorataan inaan idinku hogaamin doono waayo aragnimo cadaalad hufnaan iyo sinaan 2 ilaalinta xasaanadda iyo xuquuqda xildhibaanada anigoo raacaya dastuurka iyo xeer hoosaadka baarlamaanka waxaan difaaci doonaa xasaanadda iyo
xurmada xildhibaanada iyo karaamada iyo sharafta xildhibaanada rayga iyo kala duwanaanshaha fikradaha. waxaan kaloo aan ka shaqayn doonaa inay xildhibaanadu helaan xuquuqdooda maaliyadeed, gunno iyo mishaar ee ku qeexan miisaaniyadda loo qoondeeyey baarlamaanka. sidoo kale waxaan awoodda saari doonaa daryeelka xildhibaanada muddo xileedkoodu dhammaaday, sida inay helaan gunno iyo wixii kaloo daryeel maaliyadeed ee ka maqan. horumarinta aqoonta xildhibaanada. anigoo ka faa'iidaysanaya aqoonteeda, waxaan baarlamaanka ku hogaamin doonaa dejinta siyaasadda iyo qorshaha tayeynta xirfadeed ee baarlamaanka, sida la baro oo sida tababarada ay ku qotomaan gudaha iyo dibaddaba. waxaan xaqiijin doonaa xiriirka hay-adaha iyo baarlamaanka caalamiga ah ee naga taageeri kara tayeynta aqoonta tababarada xildhibaanada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. madax bannaanida baarlamaanka waa qodobka ugu muhiimsan ee aan rabo inaan ballanqaadkayga ku daro. mudane marweyn, haddaad kalsoonidiina isiisaan, waxaan idiin ballanqaadayaa inaan idinku hogaamin doono dulqaad, qadarin, la tashi, iyadoo la raacayo dastuurka iyo xeerka kale ee inoo yaalla. waxaa ku go'aan qaadan doonaa talooyinkiina iyo tusaalihiina. waxaan ilaalin doonaa waxqabadkiina iyo isku wadiddiina, iyadoo aan mar walbaba tixgelinayo kala duwanaanshaha afkaarta xorta ah. wada shaqaynta baarlamaanka iyo xukuumadda si loo helo xasillooni siyaasadeed, waxaan ka shaqayn doonaa kalsooni iyo isfaham ka dhexeeya xukuumadda iyo baarlamaanka, iyadoo laga duulayo dowrka baarlamaanka ee la xisaabtanka iyo kormeerka waxqabadka xukuumadda. mudanayaal iyo marweyn, halku-dhegaygu waa jiritaan baarlamaan xor u ah shaqadiisa iyo waajibaadkiisa oo aan ku milmaynin xukuumadda. ugu dambayn, waxaan si xushmad iyo qadarin leh idinkaga codsanayaa inaad codkiina iyo kalsoonidiinna iyo niyaddiinnaba isiisaan. waxaan alle weynena ka rajaynayaa haddii uu xilkaasi iu siiyo inuu igu ceebaynin gudashada waajibaadka ee uu igu asturo. wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.